doorashada Turkiga looga dareeray maxay ayay ka dhigan tahay maxay kaga duwan tahay doorashooyinkii kale ee ka dhici jiray caalamka intiisa kale waa doorasho laba qaybood la kala yahay qayb caalamka islaamiga oo dhan waxay taageersan yihiin Recep Tayyip Erdogan halka axsaabta kalena ay wataan reer galbeedka haddaba 14ka bisha shanaad sanadka 2023 oo saaka ahayd ayaa loo dareeray doorashada wajigeedii koobaad taageerayaasha xisbiga maxaafidka Recep Tayyip Erdogan ayaa waxa la sheegay inuu ka tiro badan yahay marka laga eego dhanka taageerayaasha axsaabta kale taasoo keentay in reer galbeedku ay wadnaha farta ku hayaan nimankii soo galbinayay axsaabta kale ee doonayay xisbiga inay la wareegaan qolada kale ee mucaaradka kolley doorasho waana la kala bari doonaa waanaynu arki doonaa cidda ay guusha raacdo haddaba natiijooyinka soo bixi doona xisbiga maxaafadkii haddii uu helo kursiga sare ambaba madaxtinimada ayaa waxaa ka dhalan doona dhowr cawaaqib oo dhabarjab ku noqonaya reer galbeedkii dabada ka soo riixayay axsaabta kale ee mucaaradka bal aynu ka tilmaano dhowr qodob oo muhiim ah oo arrintaasi ku saabsan waa qodobka koowaad ee reer galbeedku waxay aaminsan yihiin haddii Rajab uu soo baxo in quwadiisu ay sii kordhi doonto uu noqon doono waddan Yurub dhammaanteed ka maarma awood gaarana taasoo markii hore iyagu ay ku rabeen inuu noqdo Turkigu wad u jajaban oo iyaga ka dambaysa markasta waa qodobka labaad ee Ruushka Shiinaha Iiraan waxay ka cabsanayaan dhammaantood in haddii Recep Tayyip Erdogan laga guuleysto inay dawlad reer galbeedaysan ay ka soo baxdo iyagana aanay dan ugu jirin qodobka saddexaad dawlado fara badan oo carabta ka mid ah waxay nacay fara badan u qabaan Recep Tayyip Erdogan iyagoo ku hoos duuleysan dawlado reer galbeed ayaa iyaguna hadday sidii rabeen wax noqon waayaan sida kale ay u noqon doontaa xaaladooda qodobka afraad 4 milyan oo reer Suuriya ayaa qaxoonti ku ah waddankaasi Turkiga oo haddii maanta Recep Tayyip Erdogan laga guuleysto iyaguna ku qasban inay ku noqdaan waddankoodii oo iyaduna aanay nabad ka jirin بل قرر دعم مرشح المعارضة كمال كليجداروف